بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. walaalayaal, allah subxaanahu wa tacaala baa mahad dhammaanteed leh naga dhigay bani aadam oo ah inta ugu qiimiga badan waxa uu abuuray. mar labaad rabbigeen mahad labaad baannu celinaynaa inuu naga dhigay inta diintiisa raacdee u hoggaansantee isaga jecel, taasoo xoog iyo xeelad midna aanan kula iman, laakiin garasho ilaah subxaanahu wa tacaala uu noo gartay ay tahay. ilaahna qur-aankiisa noogu tilmaamee yidhi: yamunnuuna calayka an aslamuu qul laa tamunnuu calaya islaamakum bal illaahu yamunnu calaykum an hadaakum liliimaani in kuntum saadiqiin. intaa kadib, cinwaanka muxaadarada oo islaax daatalbayn ah, allah subxaanahu wa tacaala dunidan markii uu abuuray dardaaran buu siiyey khalqiga isaga uu ku abuuree bani aadamka sayidka u yahay. wuxuu u diiday fasahaad inuu ka dhaco arlada, wax allay wixii lagu islaaxin lahaa dhulkana isagaa keenoo shareecada soo dejiyey. shareecada markuu rabbi soo dejiyey buu dardaaran bixiyo khalqigu la dardaarmay yidhi: wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana. dardaaranka rabbigeen uu bixiyey in dhammaanteen xadhiggii ilaah aan qabsannoonan iskhilaafin oo aanan kala tegin. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ee uu yidhi quluubtooda inay isu soo dhowaato weeye addoommada, meesha la doonaya in la daweeyana waa qalbiga. jismiga si walba uu isugu dhow yahay, mar haddii qalbigu kala tagsan yahay dadku isma haystaan. bulshada qalbiga ku kala tagtay bulsho ishaysataa maaha. sidaa daraaddeed baa rabbigeen subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay: faallafa bayna quluubikum baa la yidhi. iyadoo aan ognahay qofka xubnihiisu in ay badan yihiin baa haddana waxa la tilmaamay qalbiga uu yahay. ujeeddada qalbiga loo tilmaamay muhiimaddiisu ayay leedahay. islaaxa iyo wanaagga qalbiga haddii uu ka yimaado, kan wax islaaxinayaa qalbigiisa uu caafimaad qabo, kan islaaxa loola imaanayo in la wanaajiyo la doonayaa qalbigiisa nadiif uu yahay, bulshadaas bulsho hagaagsan bay noqonaysa. laakiin mar haddii qalbiga uu kala jeedo jismiga intiisa kale laysu keeno caqiimu ay leedahay male. sidaa daraaddeed baa rabbigeen subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay waxa la doonaya in uu midaysnaado, waxa la doonayaa in laysu keeno, waxa la doonayaa in la islaaxiyo la wanaajiyo qalbiga weyn. ilaahay subxaanahu wa tacaala bulshada waa uu la dardaarmo: dhulkan aan aniga abuuray ha fasahaadinina rabbigeen subxaanahu wa tacaala. laakiin hiya tabiicatu lbashar, bani aadamka dabiicadihiisa waxaa ka mid ah mar hadday wada nool yihiin inay iskhilaafaan, qalbigooga inuu kala tago. muhiim laakiin waxaa ah haddii la iskhilaafo, qalbiga u iskhilaafo, in dadku isu yimaadaan, dhexdhexaad inuu dhaco, qolo muslixiina inay jiraan, aad bay muhiim u tahay. sidaa daraaddeed ayaa guud ahaan allah subxaanahu wa tacaala, hadday tahay khilaafkii usariga ahaa iyo haddii ay tahay khilaafkii caalamiga ahaa, intuba sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam aad ay u qaadaa dhigtay. ilaahayna addoommadiisa in badan uu kula dardaarmay dhulkana islaax in la dhigo, la wanaajiyo, khilaafka laga ilaaliyo. khilaafkana wuxuu ilaashamayaa qofka sidaan tilmaannay markuu qalbiga ka caafimaad qabo. qalbi xumada dhibaatada ay leedahay iyadaa ku naargaysa, oo qofka markuu qalbi xun yahay, sida sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ay tilmaantay, xitaa camalkiisa lama qaado oo lama aqbalo. oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay: tucradu alacmaalu likulli yowmi inayn wa khamiis. maalin walbo isniina iyo maalin walbo khamiisa acmaasha allah subxaanahu wa tacaala baa loo bandhigaa. acmaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala ba usbuuci weeye, laba mar baa addoommada camalkooga ilaahay subxaanahu wa tacaala loo bandhigaa.
acmaasha allah subxaanahu wa tacaala loo bandhigaya ilaahay waa uu aqbalayaa camalka usbuuciga ee addoommadu ay sameeyeen, haddii salaad ay tahay iyo haddii soom uu yahay, hadday sadaqo tahay, khayrkii oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu aqbalayaa. yaa laga aqbalayaa? cid kasta oo aan alla shirki la samaynin camalkooda wiigga waa la aqbalaya. laakiin laba qof aan wax laga aqbalaynin baa jirta. labada aan wax laga aqbalaynin waxa weeyaan labada qalbigu wax isugu haysa. camalkoogii dib baa loo soo celina. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay dib iiga dhiga ilaa waxa dhexdooda ku jira ay hagaajiyaan. unduruu haadayni xataa yastalixa, labadan camalkooga dib iiga dhiga ilaa waxa dhexdooda ku jira ay hagaajiyaan. idan marka labada 10 sano qalbiga wax isugu hayso, 10ka sanaba camalkooga dhulku yaala lama qaadin weeye. in marka bulshadu ay dawowdo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam intay saa u qaadato ee ay dawowdo oo iyadu ay is-islaaxiso aad bay muhiim u tahay. silaaxa marka mar wuxuu noqon karaa sidaan tilmaannay inay isdagaalaan ama dhibaato dhex marto laba deris ah. mar waxay noqon kartaa laba magaalo, waxay noqon kartaa laba tuulo, mar waxay noqon kartaa laba waddan, mar waxay noqon kartaa laba gobol. intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala xuluusheedii waa uu keenay. intaba xuluushoodu waa uu keenay. jamaaco muslimiina haddii ay isdagaalaan ama dhibaato dhex marto bulshada inteedii kale ku baxa ayaa la yidhi. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy wain طaa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahumaa cala اlأkhraa faqaatiluu alatii tabqii xataa tafya. hunaa waxaan arkaynaa xugum iyo islaax baa isdaba yaalla. islaaxa mararka qaar wuxuu ka horreeyaa xukunka. maxaa yeele aayadda hadda waxay tilmaamaysaa waxaa la yidhi laba bulsho hadday isdagaalaan, laba mu'min, kow waxaa lagu fiirinaya intaan xukunka la gaarin ka hor in la islaaxiyo dhexdooda la galo. ilan allah wuxuu yidhi wain طaa'ifataani min almu'miniina iqtataluu, maxaa la soo hormariyey? faaslixuu baynahumaa, dhexdooda hagaajiya. islaaxa dhexdooda la hagaajinaya markii wax lagu waaye kadib baa waxaa loo dhaadhacaya xukumkii dusha laga saaray. la yidhi fain bagat ixdaahumaa cala اlأkhraa faqaatiluu alatii tabqii xataa tafya. maxaa yeelay sidiisaba sulux waa sayidulaxkaam wey, isagaa soo horreeya marka hore. sababka uu soo horreeya waxa weeyaan mar hadduu xukum yimaado, xukunka hal il buu leeyahay. kanaa tabar yar iyo midkan baa xoog le iyo kanaa liita iyo kanaa wax haysta iyo kanaa ma yaqaan. siduu yahay buu wadnaha ugu dhufanaya. marka laakiin sulux markay tahay labada qofba haddii la dhexadhexaadiyo wax loo sheego, xitaa mid haddii sadbursi uu ku yimaado, labaduba waa qalbi fiyoobaanayaan. laakiin xukum hadduu dhaco waxaa dhici karta mid uu raalli yahay, kan kalena xukunka ay qabtay inuu iska baxo. sidaasaa dhici karta. sidaa daraaddeed suluxa wuxuu ka horreeyaa xukunkii buu ka horreeyaa. allah subxaanahu wa tacaala marka wuxuu la dardaarmayaa bulshadeenta degta. bulshada waa inay ku jiraan dad muslixiina. waa taaban doonna dad mufsidiina baa jira. sideedana wanaajintu waxaa ka soo horjeedo dadkeedii ah fasaadka. dad mufsidiina baa jira. marka mu'miniinta in ay ku jiraan qayb muslixiin ah ee ka shaqaysa salaaxa waa laazim weeye. diinteennuna waxay aad u ammaantay ummaddatan marka la leeyahay waxaad ahaateen ummatan ugu khayr badan ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar. waa salaaxi weeye. dadkii bay hagaajinayaan bulshada dhexdeeda. haddii marka isdagaalaan laba kooxood oo mu'miniin ah ee mid ay rabbi subxana wa tacala wuxuu leeyahay dhexdooda hagaajiya, waa la dhexgelaya, waa lagu baxaya. sidoo kale haddii ay tahay tii usariga ahayd ee qoyska dhexdiisa ahayd, diinteennu waa ay ka hadashay. wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcaثuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma baa rabbi subxaana wa tacala. waa usarkii weeye, qoyskii weeye. qoyskana sidiisaba bulshada meeshay ka bilaabanta wey. bulshada qoyskay ka bilaabantaa, markaasay kor u kacdaa. usarka marka haddii uu burburo ama dhibaato ay ku timaado ama la islaaxin waayo, bulshada inteedii kale waa ay baaba'aysaa. waana meesha maanta aan ka dhimannay, wakhtigaan hadda aan joogno ayaa tana aasaaskeedii ah. in labada qof ee qoyska ah aanayba aaminsanayn in ay yihiin dawlad kaamil ahoo dhisan oo madaxdeedii iyo arkaanteedii iyo tiirarkeegii wadata in ay yihiin, iyaga laftoodii aanay aaminsanayn. ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisana wax weyn ay ka tahay. idan haddii marka khilaaf dhacdhexdooda waxaa la yidhi markaa oo labadan usarka ah
ee ka koobanee madaxda dhexdooda khilaaf ka dhaco waxay diintuna fartay in ay soo baxaan dad xakam ah oo dhexadhexaad sameeyo labada qayboodba ka kooban. labadaa islaax bay samaynayaan, iyagii bay dhexgelayaan. kow marka hore waxay ku qurux badan tahay iyaga dhexdooda inay ishagaajiyaan oo ay aaminaan bulshada inteeda kale dadka iska xiga iyagu inay yihiin. laakiin annagu haddii aan dadkan nahay waan ka dhacsannahay. sababku waxa weeyaan kowba asalka iyo aasaaska usariga ah la qaadan maayo. dadkan waxay isku yihiinba lama oga, iyaguna qaadan maayaan inay bulshada inteeda kale iyaga isaga dhow yihiin. xuquuqdii iyaga dhex taalla inay mid aad u weyn tahay. waxaad badmooddaa mararka qaar dardaaramo adag in ay jiraan. mahmaahyadeenna ayaa tilmaamaya. maalan meesha la dhihi lahaa iyaga inay iska xigaan markay dadku isu imaanayaan dardaaran bac la siiya waxaa la leeyahay, dardaaran aad u fiican la siiya waxaa la leeyahay, mahmaahyaaba jiro la leeyahay dumarku haddii aad xariir u dhigto xaran ay kuu dhigaan. yacni waa meeshii la rabay in ay noqoto gogol. ilaahayna ku tilmaamay hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun. وأنتم لباس لهن. dhar inay isu noqdaan baa waxaa la leeyahay haddaad xariir yani meesha waxaa ka muuqata inay tahay arrin aad u adag. iyaguna ay yidhaahdaan ilaa ay gasho markii la kala tegayo furiinku taagan tahay in labadiiba isu maahmaahaan ee la yidhaahdo naag la furi fadhi uma yaal. iyaguna maxay leeyihiin kii furayna falkiisa alla ku celi. bimacnaa bulsho waxa weeyaan iyada dhanba did isku ah oo aan aaminsanayn dadkan waxay isu yihiin, inay ummadda iyaga isaga dhow yihiin, in iyaga marka hore dhexdooda islaax ku dayaan. wixii ka bataa bulshada inteeda wanaagsan ee khayrka iyaga kula talin lahaa inay u soo bandhigaan. bale waxaad arkaysaa mararka qaar usarka markii la dhexgalayo qoyska qof walba qofka kale xagashuu kaga istaagaya. intii uu ka galay dembi ah in ka badan ayuu ku daraya. waxaad mooddaa marka dadkii iyagii laftoodii uusan ka soo go'in islaaxi ee waxaanba dhexadhexaad aanay ka ahayn, dadka kale intoodii inay iska xigaan aanay dareensaneen. wa ficlan in mararka qaar laysku eriyo. oo maxaa dhacay? xitaa ubadka in cuqdad la geliyo. waxyaabaha aan la yaabo ilaahay tusa waxaa ka mid ah qoys 5-6 carruura isu leh. carruurta labada waalid mid unbay raacaysaa. inta waalidkii mid ka mida uu raacay carruurtii bahalo looga dhigay waalidka intiisii kale. qofkan ma oga ubadkii isaga uu dhalay inuu baabi'inayo mustaqbalkooga iyo qalbigooga iyo dadnimadooda inuu baabi'inayo. isagii baa isbaabi'iyey, ubadkiibuu baabi'iyey. idan ubad waalidkood lagu diray adigana mustaqbalkuu noqon maya. ha ku daalin, korintooda unbaa ku dhibaysa, waxay ku noqonayaan haba yaraatee ma jiro. waad ku daalin. dadka marka waxay isu yihiin marka hore in ay fahmaan waa waxaad u qurux badan. in marka la ilaaliyo kiyaankan rasmigee soo kacaya qiimiga badan ee dowladdiiba meeshay ka aasaasmaysay ah waa muhiim. haddii marka bulshadii ubadkii dhexdiisii lagu murmo ee dhibaato badan ka dhacdo ee qaylo ka dhacdo, inkaarta iyo musiibada dhacaysaa waxaa ka mid ah ubadkii laftoodii nolosha inay ka dhacaan, ay ka dhacaan waxbarashadii ka dhacaan, cuqdad iyagii laftoodii ay ku beeranto. ubadkan meesha la rabay inay hoggaamiyaan ummad dhan oo kaamila loo barbaarina. idan labadaa qoys iyaga islaax inuu marka hore ka yimaado, dadka mudanna ay u dhiibaan, inta kale gelaysaana cadaalad arrintaas iyada ay u galaan. islaaxa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo tilmaamay iska dhaaf dunida xitaa jannada aakhiro markay la tagay in uu jiro islaax daat albayn inuu jiro. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiid buu noo tilmaamaya. xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam anas baa xadiidka warinaya wuxuu leeyahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa annagoo nebiga la fadhinno rasuulka calayhi salaatu wasalaam annagoo la fadhinna wuxuu noo tilmaamay rabbulcizati jal nabigaa qoslay buu yidhi. markaasaa cumar wuxuu yidhi maxaa kaa qosliyey rasuul allow? biabi anta wa ummi. markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rajulaani min ummatii, laba
qof oo ummaddayda ka mid ah ayaa qiyaamaha la keenaya. adduunka intii la joogo dulmi badan baa la kala galay, khaladaad baa dhacay, ama ha noqdo laba isqabta, ama ha noqdo laba wada dhalatay, ama ha noqoto laba deris dulmi baa la kala galay, ama laba shirko waxay isugu darsan yihiin. labadoodii madlabaa ka dhaxaysay. kii markaa dulmiga lagu sameeyey baa taaganoo doodaya amaama allaahi, maxkamaddii buu taagan yahay. wuxuu leeyahay yaa rab, iiga qaad xuquuqdii aan ku lahaa. nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegaya saxaabada, xuquuqdii aan ku lahaa iiga qaad. markaasuu rabbi leeyahay sii xuquuqdiisa ninka kan, acti akhaaka madlamata. markaasuu ninkii leeya yaa rab, wax gacanta iigu jira aan hayo ma jiro. maxaa yeelay qofkan xasanaadkiisii oo dhan baa la qaatay. waana meesha nebiga calayhi salaatu wasalaam tilmaamay ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam yidhi saxaabada markuu weyddiiyey mufliska, yaa muflis ah, ee saxaabadu yidhahdeen ma laa dirham walaa diinaar. ee nebiga calayhi salaatu wasalaam almuflisu fii ummatii, waxa weeyaan qiyaamaha markii la tago qof la yimid acmaal fara badan oo waaweyn oo tii jannada lagu tegi lahaa ah, laakiin mushkiladda maxay ka taagan tahay? kan buu caayay, kanuu aflagaadeeyey, kan buu xantay, labadan buu isku diray, kan xoolihiisii buu qaatay, dhibaato fara badan buu geystay. ummaddii oo dhan baa markaa wada safanoo taagan oo doonaysa in xuquuqdiisii looga qaado. markaasaa xasanaadkiisii buuraha la ekaabaa inta la soo qaadaa la qaybinaya, khalqiga isaga u haystay baa loo qaybinaya. xasanaadkiisii ummaddii oo dhan markii loo qaybiyo wax soo haray ma jiro. ninkii halkiiba u taagan yahay, markaasuu leeyahay yaa rabbi, wax ii yaallo xasanaada ma jiro, waxaygii oo dhan waa la qaatay. ninkii baa markaa dhahaya haddii haddaba xasanaad uusan lahayn, anigu dulmi buu iga galaye dembigayga inta la qaado isaga dusha ha laga saara, ha lagu cadaabo. dembigayga inta la qaado isaga dusha. dood baa labadoodii ka taagan. nebigaa saxaabada uu sheegaya. nebiga markii arrintaasi uu yidhi falyaxmil cannii awsaari, intaa markuu saxaabada u sheegay fafaadat cayna rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam. nebiga calayhi salaatu wasalaam waa uu ooyey, ilintii baa ka timid. markaasuu yidhi ina dalika la yowmun cadiim, maalintaa waa maalin aad u weyn. waa maalin dadku ay u baahan yihiin cid dembigooga ka qaadda. cid dembigooga ka qaadda maalintay u baahan yihiin weeye. markaasuu allah subxaanahu wa tacaala baa labadoodiioo saa isu haystee doodaya. ninna uu le madallamadeydii baan u baahanay, ninka kalena uu le waxaan haya ma jiro, oo dooddii ay ka taagan tahay baa rabbulcizati jalla wacalaa soo dhexgelay. markaasuu labadoodii masaalix dhexdhigaya. ilaahay baa markaa wuxuu leeyahay ninkii xaqa doonayey ee dulmiga laga galay baa lala hadlaya, rabbi baa la hadlaya. markaasuu leeyahay irfac basarak, araggaaga kor u qaad buu leeyahy. waxaa lala hadlayaa ninkii dulmiga laga galay, araggaaga kor u qaad baa la leeyahy. markaasuu araggiisa kor u qaadaya. araggiisa markuu kor u qaado ayaa la leeyahy jannooyinkaan fiiri. marka wuxuu arkayaa qusuurtii iyo daarihii iyo nicmooyinkii iyo webiyadii jannadii iyo wixii barwaaqadii buu arkaya. barwaaqadii marka uu arko oo waxa uu arkuu leeyahay yaa rab, araa madaa'inu min fida waqusuuran buu leeyahay. yacni wuxuu arkayaa adduunyadii iyo nimcadii barwaaqadii buu arkayaa oo soo raaracda. isagii baa marka su'aasha ninkiiba wuu ilaaway. markuu waxaan arkay ninkuu madallamada u haystayba wuu ilaaway. markaasuu rabbi intuu la hadluu leeyahay yaa rab, liأyi nabiyin haada, liأyi sidiiqin haada, liأyi shahiidin haada. umaba haystaba waxaan dadkan caadigayna yaqaan, nebiyadee leh, nebigee leh, sadiiqee leh, shahiidkee leh nimcadatan. allah subxaanaه wa tacaala baa u jawaabaya. markaasaa wuxuu leeyahay haada liman acطaa amanahu, ninka xoolihiisa bixiyaa leh. markaasaa wuxuu le maanta yaa xoolo haysta. ilan meeshaa waxaan ognahay qofna cid dhar xitaa lama sito, wax la hayaa ma jiro. rabbi markaasaa wuxuu leeyahay adiga, adaa xoolo haysta. markaasuu leh maada yaa rab? qaala wuxuu le tacfuu can akhiika, walaalkaa haddaad cafiso, cafintaa walaalka aad cafinaysa ayaad meeshaa ku yeelanaysaa, xoolahaagana waa taa. hadal ma ka bannaan. markaasuu leeyahay qad cafawtu canhu, waan cafiyey buu leeyahay.
markaasuu rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay khud biyadi akhiika walaalkaa gacantiisa qabo ee jannada wada gala. waa ninkii hadda isku dheganaayeen labadoodii ee is haysteen. islaaxa marka yaa keenay labadaa qof ee is haysatee madalamada isu haysatay islaaxoodii yaa keenay allah subxaanahu wa tacaala. waxaad marka dareemaysaa islaaxdaa talbayn dunidoo keliya ma yeela xitaa aakhiruu jira. wax islaaxiyana rabbi subxaanahu wa tacaala baa ugu horeeya. in marka ummadda la islaaxiyo ee la dhexadhexaadiyo ee la dhex galo, hadday afraad yihiin iyo hadday mujtamac yihiin iyo hadday duwal yihiin, diinteennaa ku dhisan. allah subxaanaه wa tacaala waa tanuu leeyahay walaa tajcalu اllaha curdatan liaymaanikum an tabaruu watattaquu watuslixuu bayna الnaas. waa min shariicat اllahi caza wajal. diinteennu waxay tilmaantay xitaa qofka dhimanaya markuu dardaarmaya dardaaranka khalad hadduu geliyo inta maqlaysaa inay saxaan. faman khaafa min muusin janafan aw iثman faaslaxa baynahum falaa iثma calayhi baa diinteennu tilmaantay. xitaa kii dhimanaya khalad hadduu samay inta soo hadhay inay islaaxa la samayso. islaaxa waa shaqadii ambiyada, iyaga ugu horreeyey. nebiyullaahi shucayb calayhi الsalaaةu wasalaam baa la hadlaya qoomkii markii ay dhibeen. waa tanuu leeyahay ara'aytum in kuntu calىa bayinati min rabbii warazaqanii minhu risqan xasana wma uriidu an ukhaalifakum ilى ma anhaakum canhu in uriidu ila اlإصlaaxa ma اstaطactu. idan ambiyada wax dardaarma iyagaa ugu horeeya. silaaxoo la waaya waa fasahaad baa imaanaya. fasahaadkana dadka lagu yaqaana waxaa ka mid ah munaafiqiinta. qofku hadduusan muslix ka shaqaynin, yani islaax hadduusan ka shaqaynin muslix uusan ahayn, qofkaasi waa qof ahlu fasahaada buu noqonayaa. ahlu fasahaadkana qur-aanku wuxuu tilmaamay inay yihiin munaafiqiin inay yihiin. fii suurati albaqara allah subxaanaه wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa munaafiqiinta sifaadkooda markii laga hadlaayay waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi اlardi qaaluu inamaa naxnu muslixuun. hadda waxbay xumaynayaan. la yaab ma laha marka haddii aad aragtaan qof khalad ku jira ee fasahaad ka shaqaynaya, haddana inuu wax wanaajinayo isu haystaa waa loogaga horreeyey. munaafiqiintii baa dhaqankoogu sidaaya. fircoon baad arkaysaan nebiyullaahi muuse calayhi الsalaaةu wasalaam ku tuhmaya inuu wax fasahaadinayo. innii akhaafu an yubadila diinakum ow an yudhira fi اlardi اlfasaad. waa nebi ilaahay weeye, isagana mujrim kii ugu weynaa dunida wuxuu ku tuhmayaa inuu yahay mufsid fi اlardi inuu yahay buu ku tuhmaya. ilaah subxaanaه wa tacaala wuxuu noo tilmaamay dadka muslixiinta ah bulshada ay ku dhex jiraan inaanay hoogin, iyaguna ay badbaadayaan, mujtamac intiisa kalena ay badbaadayaan. fii suurati huud baa rabbi leeyahay falowlaa kaana min alquruuni min qablikum uluu baqiyati yanhawna can اlfasaadi fi اlardi ila qaliila miman anjayna minhum waاtabaca aladiina dalamuu ma utrifuu fiihi wakanuu mujrimiin wma kaana rabuka liyuhlika alquraa bidulmin waahluha muslixuun. lama halaago mujtamac dad muslixiin ay ku jiraan. idan marka mushkiladaha dhacaya aasaaskeeda waxa dadkii muslixiinta ah baa la waayey. qofkuu iska aamusaya. waxaa la tilmaamay saddexdii qolo ee reer banu israa'iil allah subxaanaه wa tacaala ka warramay markii la yidhi ha ugaarsanina maalinta sabtida ah ha ugaarsanina markii la yidhi, saddexdii qolo ee ilaahay tilmaamay qolo sabtidii ugaadhatay markay xeeladaysteen tog bay fureen. sida qur-aanku tilmaamay tog bay fureen. kalluunkii baa soo raacay, maalintii sabtida galabtii bay gadaal ka jareen. kalluunkii sabti buu gacan galay, axaddii bay gurteen, sabti ma aanan ugaaran bay yidhaahdeen. fasahaadka markay samaynayeen qolaa u timidoo warhooy ilaahay intaad ka baqdaan diinta xeeladaysamaha waxaan ka joojiyay yidhaahdeen. qolo kalena waxay yidhahdeen qolo ilaahay halaagay dan uma lihin waxba waanin mayna naga daaya. saddexdii qolo allah subxaanaه wa tacaala markuu ka hadlaayay
qolo waxaa la tilmaamay inay la yidhi kunuu qiradatan khaasi'iin daanyarahoogu inkaaray ku dhacday noqdaa la yidhi alla waa halaagay daanyaray noqdeen fii suurati albaqara wa fii suurati almaa'ida intuba allah subxaana wa tacaala waa kaga warramay kunuu qiradatan khaasi'iina la yidhi qoladii kale labaadna ilaahay waa ka aamusay siday munkarka markii uu dhacaya kaga aamuseen ayaa allana kaga aamusay magacoogaba lama soo qaadin qoladii saddexaad ilaahay subxaana wa tacaala waa u ammaanay waxaana loo tilmaamay ilaahay uu yidhi falammaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can الsuuءi وأkhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bima kaanuu ba rabbi subxana wa tacala waata ugu tilmaamay waad badbaadinaa la yidhi kuwii muslixiinta ayaa u hagaajiyey dadka marka inay dad wanaagsan dhex socdaan waa aad bay muhiim u tahay samahooda iyo wanaaggooga ku jira ummaddu marka waa in ay taqaan khalad hadduu dhaco sixitaankayga waa inay taqaan sidaa daraaddeed baa rabbi yidhi rabbigaa ma halaago qura ama waddan ha noqdo ama magaalo ha noqoto inta dadka iyada dhexdeeda ah wanaag iyo khayr ay wadaan marka dadka waalwaalan in gacanta la qabto ee la celiyo ee la xajiyo sharcigeenna ayaa aad u tilmaamaya oo la hagaajiyo usarkii la hagaajiyo labada wada dhalatay fasahaadka dhexdooda ah la hagaajiyo mujtamaca dariska ah la hagaajiyo duwalka la hagaajiyo gobollada waxaa soo haray marka hadday intaan dhici waayaan cuqdad baa imaanaysa marka cuqdadda haddii ay timaado maxay reebtaa sidaan tilmaannay cibaadadoo la aqbali waayo sidaan tilmaannay qalbixumada ugu weyn oo qofka ku dhacdo sidaan tilmaannay cadaab la galo sidaan tilmaannay in la waayo salaamatu sadri qalbiga inuu caafimaad qabo haddii intaas ay dhacaanna waxaa xiga cudurro abaaro waxaan horay loo aqoonin asbaabta ay ku yimaadaan oo dhan waxa weeyaan in qalbiga xumaado ummaddiina laga waayo dad dhexdeeda islaaxiya allah subxaana wa tacaala wuxuu noo tilmaamayaa qisas aad u fara badan oo ku saabsan islaax daat albayn oo ku saabsan tasaamux dadku inay iscafiyaan oo ay gartaan sulux dadkaan la islaaxinaya ambiyada markaad u fiirsato taariikhdooda nabigeenna calayhi salaatu wasalaam baad arkaysaa dhibaatooyin fara badan in la mariyey waana axadka kudayda nala yiri waddadiisa mara nala yiri haddaad u fiirsato maalintii taa'if laga soo cayriya dhibaatada loo geystay waxba kama uusan soo qaadin makaa laga saaray oo aad ogtihiin habeenkii inta loo shiray allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku tilmaamay waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka ow yaqtuluuka ow yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru allaha wallaahu khayru lmaakiriin ee magaalada uu ka baxay isagoo inuu ka baxa aan jeclayn weliba magaalada markuu ka baxay intuu dib u soo dhowray nabiga calayhi salaatu wasalaam ilmeeyey oo uu yidhi ilaahay meeshaan ugu jeclaa waa maka haddayaan iga kaa saari lahayn weligay kama aanan baxayn 8 sano kadib buu ku soo laabtay dadkii markay dhibaateeyey gacanta uu ku dhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam farahu ka qaaday iska taga buu yidhi tasaamuxa weeye cafiga weeye muslixiin hadday dadka ku dhex jiraan baana cafigu imaan karaa ama iyaga laftoodu dadku ay gartaan silaaxa si ay u badbaado ummadda dad maanta ma dhaqna laba haysataa ma jirto laba gobol isma haysato laba tuulo isma haysato laba dariisa isma haysato yacni ummaddii oo dhan tashatud baa ku dhacay muslixiinna ma jirto dhexdoodana salaax ma jiro cafinna ma jirto saamaxaadna ma jirto nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam baad ogtihiin dhibaatada ku dhacday iyo inta la marsiiyey haddana waxba kama uusan soo qaadan isagoo rasuulullaahi ah oo nebiyullaahi oo dooran ayaa maxaa dhacday nebi yuusuf ceel baa lagu riday waa geeri sida neef xoolo ah baa la iibsaday waa ka daranta addoon baa laga dhigtay weliba lacagta la siistay lacag aad u liidatay washarawhu biamanin baks addoon baa laga dhigtay islaantii guriga joogtay baa haddana masabidatoo hagagtay xabsi buu galay intaas oo dhibaato midba midda ka darantahay baa nebi yuusuf loo geystay nebigiisaa loo dhibaateeyey ee la waxyeeleeyey
walaalihii oo socdoo dhibaataysan markay u yimaadeen uu gartay akhiiran qisadu way dheereeda waa tii uu yidhi markay garteen ainnaka la anta yuusuf ee uu yidhi qaala ana yuusufu wahada akhii qad manna allahu calayna innahu man yattaqi wayasbir faina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin ee ay yidhaahdeen qaaluu tallaahi laqad aaharaka allahu calayna wain kunna la khaati'iin jawaabtuu siiye quruxdeeda arag qaala laa tahriiba calaykum alyowma yakfir llah ummadda markii la islaaxi waa inay iscafisaa qalbigan isu furtaa laa tahriiba calaykum alyowma inuu iska saamaxo iska dhaafo waa wax la garta ilaahay buu dembi dhaaf u weydiinaya yakfir allahu lakum buu leeyahy waa ninka intaasoo dhibaato a loo geystay waxaa ka daran reerkii oo dhan halla keena markuu yidhi ee qoyskii inta la soo qaaday ay yimaadeen meeshii isaga uu joogo waa boqor maanta gacantiisay ku jiraan waa dadkii shalay ceelka ku riday walaalihii baa hor fadhiya odagii baa jooga hooyaa joogta arrimihii baa la qaadadhigayaa hadalka yuusuf baa qaatay wa rafaca abawayhi cala alcarshi wakharuu lahu sujada waqaala yaa abati hada ta'wiilu ru'yaaya min qablu qad jacalahaa rabbii xaqa waqad axsana bii id akhrajanii min الsijni وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي آيات تتابع يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي اللوائي وناجيها إذ أخرجني محاحقة من البئر مياه من السجن وي حبسي بو نبي يوسف تلمامي حبسي عيالك يا درا عيالك درا xabsigu geeri ma aha dad baa kula jira cuntaa loo keenaya waa qof laga warhayo caafimaadkiisa la og yahay ceelka laakiin waa geeri dhagax baa imaan karoo ku dhici kara masas baa ku jiri kara roob baa inta yimaado isagoo dhan baa bi'in kara cid ka soo saaraysaa mara dhowr maalmood haddii lagu dayo waa geeri ceelka haddana yuusuf sooma uusan hadal qaadin ceelkii ee wuxuu yidhi waqad axsana alla waa i wanaajiyey id akhrajanii markuu iga soo saaray min asijni xabsiga markuu iga soo saaray min albiri ma uusan dhihin hadduu dhihi lahaa ceelka maxaa dhici lahaa walaalihii ku riday baa hor fadhiya qalbigoogaa dhaawac gaari lahaa ma taabanin mana soo hadal qaadin maxay tahay isagoo ilaalinaya walaalihii qalbigooga dadka la islaaxinaya laftooda sidaasoo kale ayaa waxaa la doonaya markii islaaxu u dhacaya dhexdhexaadka lagu samaynaya qofba qofka kale meesha hadalka uu ka wanaagsan yahay inuu ka qabto uu wax hambeeyo ee uu wax reebo nabiyullaahi yuusuf ma uusan sheegin ceelkii ma uusan sheegin suuqii iyo dhibaatadii addoonnimada uu soo maray wuxuu tilmaamay xabsigii ilaahay waa i wanaajiyey markuu xabsiga iga soo saaray buu yidhi iyagiina muxuu ku yidhi dadkan baahi baa keentay qaxooti weeye ma uusan dhihin muxuu yidhi baadiyaha ilahay idinka keenay baa mahadle wa jaa'a bikum min albadwi min aljuuci ma uusan dhihin xifdan liladab wey ummadda marka waa inay noqotaa ummad wax la harta markaasaa ummaddu salaaxeega imaan karaa markaasay ummaddu iscafinteedu imaan kartaa markaasaa la dhexadhexaadin karaa idan marka inaan ku dadaalno dhexadhexaadinta ummadda dad muslixiina naga soo dhex baxaan waxaan ku khilaafi karnaa in bara'atu min annifaaq aan helno ila qofka markuu muslix yahay low maxaad u malaynaysaan xaafadaheenna qolo walba meeshay ka timid odayaal iyo dad akhyaara inta loo sameeyo dadka iskhilaafsan ee xaafadaha dhexdooda ah dadka isqaba dad un daa'iman ku baxa haddii la helo sidaasoo kale ummadda deriska ah inta deriska ahee magaalooyinka iskhilaafsan qabaa'ilaadka iskhilaafsan dhexdooda daa'iman dad ku baxo dhexdhexaad haddii la helo ummadda wanaaggeedaa la heli lahaa idan allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo tawfiiqdiisa iyo khayrkiisa oo aan noqonno ummad salaax iyo wanaag ka shaqaysa diintana allah subxaana wa tacaala nagu hago muslixiin aan noqonno quluubtooda ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay isjeclaysiin rabbi naga dhigo ayaan allah subxaana wa tacaala weydiisanaynaa kuwa ku dayda ariiqii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam raaco rabbi inuu naga dhigaan weydiisanaynaa in sha allahu intaasaan kelmaddayda biidni illaahi ku koobi doonaa oo ay ku eg tahay daqiiqadihii laygu tala galay baarakum allahu fiikum wajazaakum allahu khayr